wasiirka wasaaradda bii'ada dawlad goboleedka koonfur orso oo weheliyayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda agaasimaha guud yamay baahabiyeen wareegta mamnuucaas dhammaan waliba wal fayta deegaanka ifay dhoorshay wareegtadu wasaaradda xakubati may baa warbaahinta la wadaagay agaasimaha guud ee wasaaradda maxamed nuur xaaji maxamed wasaaradda bii'ada iyo turjoogta dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayadoo ka duulaysa waajibaadkeeda shaqo ee dastuuriga ah oo ay mas'uul uga tahay dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayadoo la siinayo ahmiyad gaar ahaaneed ilaalinta deegaanka ama bii'ada iyo hirgelinta shuruucda dowraysa bii'ada iyo duurjoogta isla markaana fududeynaysa meelmarinta xeerka maareynta deegaanka iyo duurjoogta dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wasaaraddu markay tixgelisay qodobka 45aad ee dastuurka kumulgaarka ah ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo qodobka 85aad ee dastuurka kumulgaarka ah dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya si cad u qeexaya ilaalinta iyo horumarinta deegaanka wasaaraddu markay u cadaatay in la garab maray nidaamka sharciyeed ee ilaalinta deegaanka ama bii'ada baaritaan dheer kadib wasaaraddu waxay go'aansatay in laga bilaabo maanta oo ah khamiis taariikhdana ay tahay 28 bisha 3aad sanadka 2019 in la dhaqan geliyo shuruucda iyo awaamirta hoos qoran number 2 in la joojiyo xaalufinta ba'an ee lagu hayo dhirta gaar ahaan deegaanada ay maamusho dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya taasoo saameyn ba'an oo nabad guur ah ku yeelanaysa deegaanka koonfur galbeed Soomaaliya number 2 wasaaraddu waxay ogeysiinaysaa dhammaan dadweynaha ku dhaqan 18 degmo ee koonfur galbeed Soomaaliya in aysan ka qayb qaadanaynin waxyaabaha deegaanka dhibaateyn kara sida jarista dhuxusha qashinka oo la daadiyo wadooyinka suuqyada iyo xaafadaha number 3 wasaaraddu waxay ogeysiinaysaa dhammaan ganacsatada ku sugan koonfur galbeed Soomaaliya in la joojiyay isticmaalka ka ganacsiga bacaha oo dhan 3 Abriil wixii ka dambeeya cidii lagu arko isticmaalka ama ka ganacsiga baco waxay mutaysanaysaa talaabo sharci waafaqsan wareegtadaas kolkii uu akhriya agaasimaha guud iyo wasiirkana hadalimay baan sheegay in uu eedo ku dhoorow bulshada ku nool koonfur orso in uu hogaansamo doonaan awaamirta xukubada wasaaradda si deegaanka uu soognagada koofayl faydhowr iyo iska hadlay koro way bafaranahay dhamaan dadweynaha ka nool dawlad goboleedka koonfur galbeed eeriyada xukuumadda maamulada inay ilaaliyaan nadaafadda iyo deegaansho inay ilaaliyaan geedo oo linjarn inay ilaaliyaan meel raay ku ganacsiga bacooyinka wala oo inka doromo bacyaalkan hobla ganacsiga bacyaalkan way booha hatta even hadii geeka dhiida dhulka ka dhiida way booha oo aasanta ma wal oo kamila ma arada ma way booha noolad 100 sano ku baateen noolad dhulka hadii wasaaradda dawlad goboleedka koonfur orso dhawaan ugu mayba wadeenaha biyowka awaamir shilgadiisan oo markaas iyo ku fududaayaan adeegyada shilgadiis ee hayaan bulshada taasoo ay toolan egmadii